Maamulka gobolka Shabeellada Dhexe ayaa shir dib u heshiisiin ah u furay beelo ku dagaalamay deegaano hoostaga degmooyinka Raagaceelle iyo Cadalle. Gudoomiyaha maamulka gobolka Shabeellada Dhexe Axmed Makaraan ayaa dadka degmooyinka Raagaceelle iyo Cadalle kula dardaarmay inay ku mintidaan nabadgelyada dhexdooda ah. waxaan rabnaa labada qaraabo khiyaartoodii waxgaradkoodii intii wax dhihileed way joogaan. waxaan rabnaa in marka ugu horeyso si alla ka cabsiya iyo si walaalnimo iyo si dirisnimo iyo si qaraabanimo intaba Ilaahay uu idinkaga dhaxaysiiyay ina haddana loo fiiriyo wax waa dhacayaan laakiin wax haday dhacaan akhyaarta ku soo baxda xalis akhyaarta xalihiisay inaad tihiin ayaa dadku aaminsan yihiin kuwa maqan iyo dadka joogaba intaasay aaminsan yihiin inaad naqatiin marka sida leedin maleehayo inaad naqatiin ayaan Ilaahay ka rajeeynaa. waxaan rabnaa waxa dhacay waxaan aad uga xunnahay waay xilliga ay dhaceen haddana waa xilli ka sii dhibaato badan. dadku abaaray la daala dhacayaan dhibaatooyin kale cadow kale ku hay la daala dhacayaan dadka intaasoo dhibaato haysato inay haddana ayaga ay isdilaan ay ayagu naftooda gooyaan oo maanta haday dhaawacmaan xaatee dhaawacooda meesha uu maraya ogtiin iyo dhulka uu la sii marsiyayo ogtiin oo xamar isbitaalka sukay oo san jirin wax aad iyo aad looga xumaado waay inay dad walaalo intaas isku dilaan inay dad walaalo intaas ay dhibaato isugu geystaan waa wax damiirku bini'aadamku uusan ogolayn. laakiin cadawga hadda maanta dadkayna baabi'iyay ee ka dhigay badankooda qaxootiga ka dhigay ee badankooda baabi'iyay haday ku bixi lahaayeen inta naga baxday annaga maanta ciil ma qabno.